سعيدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوو جنال كهاجها نفطه مقعيقو وقاسم محمد داعاد waxaana hay saaxiibkaaga guusha iyo horumarka. qofka marka uu og yahay meesha uu u socdo iyo waxa uu doonayo markaas ayuu ku dadaali karaa inuu raadiyo wadada ugu sahlan ee uu ku gaari karo meeshaasi. weligaa ma isweydiisay saddexdan su'aalood waa su'aalo cajiib ah kuwaasoo aad ku ogaan kartid adiga qofka aad doonaysid inaad noqoto iyo weliba waxa aad nolosha higsanayso. su'aasha koobaad waa maxay waxa sida dhabta ah aan u rabo nolosheyda? su'aashan waa su'aal dadka intooda badan aanan isweydiin, kaliya waxa isweydiiya dadka farakutiriska ah ee doonaya inay noloshoodu micno u yeelaan oo ay ku noolaadaan nolol iyagu ay samaysteen oo ay ku dadaaleen qurxinteeda. su'aashan marka aad isweydiiso waxa ku soo baxaya waxa aad sida dhabta ah u doonayso oo aad u baahan tahay noloshaada. shaki kuma jiro inaad xaqiijin karto hanashadooda. waxaad kaloo ka faa'iideysaa inaad adiga nafsad ahaantaada isbarato, ogaatana halka aad la rabto naftaada inay gaarto. su'aasha labaad, qof noocee ah ayaa doonaysaa inaad noqoto? ma waxaad doonaysaa inaad sidan iska ahaato oo ay noloshaadu aysan samayn koriimo? maya ma doonayo. haddaba qof noocee ah ayaa doonaysaa inaad noqoto? shaki igama jiro inaad doonaysid inaad noqoto shaqsi qiimo badan, dabeecad wanaagsan, naxariis badan oo hanta dadka qalbiyadooda, ku noolaada nolol qurux badan oo aad loogu dadaalay dhisideeda, shaqsi leh magac iyo tixgelin bulshada dhexdeeda ah, qof aan isla qab weyneyn oo u tura masaakiinta iyo dadka dulman, shaqsi leh kalsooni uu ku dhisi karo nafsadiisa iyo dadka ka agdhow, shaqsi leh cilmi diineed iyo mid maadi ah uguna adeega naftiisa iyo dadkiisa. intaas oo dhan iyo in ka badanba ayaa doonaysaa. soo sidaas ma ahan, balse taas waxay u baahan tahay dadaal iyo isbeddel kama dambays ah inaad ku samayso noloshaada oo dhan. sida aad u noqoto qofka aad rabto inaad noqoto, u bixi wax kasta oo aad ku noqon karto oo dadaal ah iyo ka go'naansho inaad la timaado. kadibna waxaad noqon doontaa qofka aad weligaa jecleed inaad noqoto oo weliba ahaata inta cimrigaaga ka dhiman. su'aasha saddexaad, sida aan hadda ahay ma ku gaari karaa nolosha aan rabo inaan ku noolaado? ma ku noqon karaa wadada aan hadda ku socdo iyo sidaan hadda u dhaqmo qofka aan rabo inaan noqdo? su'aashan waxay ku kala saaraysaa inaad hadda tahay qof ku socda wadada gaaridda himiladiisa iyo inaad tahay qof qalbiga wax ka raba kaliya laakiin ficil ahaan aanan u sameyneynin. ma ogtahay qof kasta oo dunida ku nool inuu doonayo inuu gaaro meelo sarsareysa oo uu noqdo qof samaysta nolol qurux badan, laakiin waxaaba iska yar inta ka guul gaarta rabitaankooda ficil la'aan awgeed. adigana sidaasi ha noqonin ee sameey isbeddelka ka dhex guuxaya maskaxdaada. dhis nafsadaada oo ka fogee waxyaabaha dib u dhiga mar walba kaana hor istaaga inaad samayso isbeddel kama dambays ah. ogow nafsadaada inaad adiga leedahay, aysan jirin qof inta kuu timaada kuu horumarinaysa. maskaxdaada ka saar oo ka xoree fikradaha negatifka ah ee mar walba aad kula hadasho nafsadaada. yaysan ku cuuryaaminin dadka hadaladooda, yaysan ku cuuryaaminin hadallada dila hanka nafsadaada. inta aad nooshahay ku noolow nolol xor ah, ku noolow nolosha aad u qalanto. isna weydii saddexdan su'aalood si aad fadhiga uga kacdo. ugu dambeyn, haliidin nafsadaada. waxaad leedahay awoodo adiga kuu gaar ah ee uu Alla weyne ku beeray naftaada. aqoonso awoodaha kuu gaarka ah, ha noqon qof cuuryaamiyey nafsadiisa kuna dhammaysta noloshiisa oo dhan meel aysan u qalmin. waxaan rajeynayaa inuu ku cajabiyey muuqaalkan, kuguna beeray rajo aad u wanaagsan oo aad ku samayn karto horumar cusub. soo sidaas ma ahan? hagaag ha iloobin like inaad saarto muuqaalka kana bixiso warbixin, talo ama dhiirigelin
adigoo inoogu soo qoraya qaybta hoose ee commentiga. Si aad u hesho muuqaalo dhan walba ka dhisa, rukumo oo subscribe saaro channelkeena Hagaha Nafta. Kaliya waxaan ku soo gudbin doonaa muuqaalo la xiriira horumarinta iyo hagida nafsadaada. Inta aan goordhow kaga kulmi doono muuqaalka soo socda, waxaan ku leeyahay aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalka. Mahadsanid.